بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan ku daro warmurteedka uu akhriyay wasiirka arrimaha gudaha Puntland. Si aad la socoteen dawladda Somaliland, maamulka Somaliland wuxuu sheegay in la laayo ardayda ku dhaqan jaamacadaha wax ka barata Somaliland. Ardaydaas tiro koob guud oo aan sameynay waxay gaarayaan tiro 900 ah. 514 waxay joogaan Boorame, 310 waxay joogaan Hargeysa. waxaan ardada u sheegaynaa inay ku soo noqdaan guryahoodii. waxaan ka codsanaynaa jaamacadaha ay wax ka dhigtaan inay u soo wareejiyaan semesteradoodii iyo curriculumkoodii. si sharaf leh baan uga codsanaynaa si ay iyagoo bad qaba guryahooda wax ugu bartaan. taasi waa ardayda. waxaan kaloo u sheegaynaa shacabka Puntland ee qurbaha ka imaan jiray iyo shacabka gudaha ku jira intaba inay soo food saartay khatar ah in maamulka Somaliland ku dhawaaqay la laynayo shacabka Puntland. waxaan u sheegaynaa dadkii ka soo dhoofi jiray dibadda soo mari jiray Hargeysa inay ka soo degaan garoomadooda haddii ay ku kaliftana ay soo maraan Muqdisho caasimadda Soomaaliya. intaasi waa fariinta u dirayno dadka Puntland ee gudaha iyo dibadda jira iyo ardayda. waxaan kaloo rabnaa guddi ahaan inaan la hadalno shacabka Laascaano ee ku jira maxamiyadda ay ku hayo Muuse Biixi. shacabkaas waxaan u sheegaynaa Puntland waxay galaysaa kuna jirtay dagaal la yiraahdo Xarbul Karaama, dagaalkii sharafta. sharaftiinii ayaa wax la yeelay. sharaftii sool ayaa wax la yeelay. sharafteennii baa wax la yeelay. waxaad maqlayseen in mas'uuliyiin Somaliland ay leeyihiin awooyaashood soo waraysta. waxaad maqlayseen inay leeyihiin garaadadooda googarda qaba. waxaad maqlayseen inay lahaayeen Maxamuud Garaad iyo Faarax Garaad isma salaami karaan. waxaasoo gudnimo ah ma qaadan doono. shacabka reer Sool waa inay ka dhiidhiyaan. waxaad ogaataan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan markuu Berbera yimid ee Ingiriisku haystay masaajid buu ku tukaday salaad subax. nin Ingiriis ah yimid muadinkii buu dilay. sayidkii wuxuu yiri maxaa loo dilay ninkan muadinka ah? Ingiriiska baa la weydiiyay askariga ahaa. wuxuu yiri aadaankaasaan ka seexan waayay. sayidku wuxuu yiri gudnimada laga dhiidhiyo. dadkii ka dhiidhiyo daraawiishta noqday marka laga reebo kuwii kale ilmahooda xataa magacyada waa laga bedelay. Michael Maryaba iyo Saleebaan Gaala aad maqasheen magacyadaas loo bixiyay. haddaan maanta qaadano annagoo reer Laascaana gudnimadaas annagana magacyada la ka bedeli doona. bax caasho iyo salamadow iyo magacyo kale idin bixin doona. annagoo aad ogtihiin taariikhda meesha ka galnay. waxaa la rabaa inaad u istaagtaan xoreynta dalkiina. waxaa la rabaa mudaharaad la yiraahdo mudaharaadkii karaamada ee sharafta dadkeena iyo dalkeena inaad qabataan. waxaan u sheegaynaa dhalinyarada iyo waayeelka jooga meesha la yiraahdo Laascaano maanta ma aha maalintii aan dhowran lahayn in isir iyo ab iyo dal iyo diin bal ka bedelo. maanta waa maalinta aan u istaagi lahayn xoreynta dalkeena. waa maalinta aan qaadan lahayn in inta jiro leena ku guro leena ka soo guro hadana. Guantanamo Bay kuma taala Laascaano. Ethiopiana ma haysto. naatana ma haysto. qabiil Soomaaliyeed oo qabiilada inuu yimaadaan inay xirxiraan haddana leena ka soo bariyo wax la qaadan karo. shacabkana fariintaas aan u diraynaa waana mahadsantihiin.